Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabay ku soo dhawaada janaalkayga Baladi Official. Haddii ay tahay marka ugu horeysa, fadlan subscribe saar. Maanta waxaan warbixin idinkaga sidnaa wadanka Turkiga. Dhulgariir xoog badan ayaa ku dhuftay bariga wadanka Turkiga, halkaas oo ay guryo ku dumeen ayna ku dhinteen 21 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee wadanka Turkiga, Suleyman Soylu, ayaa sheegay in 1,000 qof oo kale ay dhulgariirka ku dhaawacmeen. Waxa uu sheegay in kooxaha gurmadka degdegga ah ay baadigoobayaan 30 qof oo ku xayirmeen burburka hoostiisa. Dhulgariirka ayaa ku dhuftay bariga wadanka Turkiga abaare 9kii fiidnimo ee xalay, waxa uuna dhulka ku daray dhismooyin iyada oo la arkayay dadka deegaanka ee ku cararaya wadooyinka. Boqolaal shaqaalaha samatabixiyayaasha ah ayaa lagu daabaalay gudaha iyo banaanka deegaankaasi, waxayna isticmaalayeen cagafyo iyo agabyo koronto iyo xitaa gacmahooda si ay uga soo badbaadiyaan dadka ku xayirmay dhismooyinka burburay. Dhulgariirka oo ahaa kii ugu horreeyay ee ku dhuftay deegaankaasi ayaa waxa uu dadka ku riday argagax xooggan, waxaana la sheegay in xitaa laga dareemayay dalalka deriska ah sida Suuriya, Lubnaan iyo Iiraan. Sida ay sheegtay wasaaradda ka hortagga musiibooyinka ee wadanka Turkiga, kadib dhulgariirka waxaa la diiwaangeliyay oo la dareemay ilaa 60 dhulgariir yaryar oo aan dhibaato geysan, waxayna wasaaradda sheegtay in ilaa 400 oo ah kooxaha samatabixiyayaasha ay haatan kusii wajahan yihiin deegaanka musiibada ay soo gaartay ayna ku habsatay, kuwaasi oo si teendhooyin iyo sariirooyin loogu talagalay dadka halkaasi ku barakacay. Waxayna sidoo kale maamulka ka digeen in aanan dib loogu laaban dhismooyinka waxyeelladu soo gaartay haddii la dareemo calaamadaha dhulgariirka ah. Dhulgariirka ayaanan ku cusbayn wadanka Turkiga oo sanadkii 1999 waxaa galbeedka magaalada Izmir ku dhuftay dhulgariir ay ku dhinteen ilaa 17,000 oo qof. Waxaan leenahay Allah ha u gargaaro dadkii ku waxyeelloobay musiibadii xalay ka dhacday wadanka Turkiga. Waxaan idinka codsanayaa inaad u soo duceydaan dadka ku waxyeelloobay musiibadii dhulgariirka ah ee ka dhacday wadanka Turkiga. Aad baad u mahadsantihiin daawashada videogan. Waxaan idinka codsanayaa inaad la share gareysaan asxaabta una soo duceysaan wadanka Turkiga.